بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان أن تاجنا هاي وحوي تولد السنوجيف ودوحة النقالات برتن كذا كتال 60 كيلومتر وقوي بريك حكت مقالة الجرول. هل كان وحي هاي وددي ويني ويسكو حريسي قبلة النقال يمدو يدو قبلة الدحى وحي كونفور كحجة جروه يوحي كونفور كحجة يوحي وقوي كحجة isku xiraysay magaalada Boosaaso ugu muhiimsan tahay way go'an tahay waa ujeedaa qiyaastii 200 miya aduu ma garanaya inna waa mood oo way burbursan tahay oo in la dumiyay u baahan tahay labada dhinacba intaasna waxa ka dilaacay wabi waxaana jabiyay biyaha xawligoodii intii aan soo maray meeshii biyo ka baxayaan ba arkaysa quwada ay ka baxayaan biyahan waa biyo nugaaleed oo dhan oo duuban oo roobabkii da'ay saddexdii bari u dambeysay xoogooda hadda ku soo dhaceen waa kala xiran yahay wadanku waa kala go'an yahay waa awood ka badan hadda habarta Puntland inkastoo Boosaaso iyadana meesha irida laga galo biyihii sanadkii dhaweyd guga ay jabiyeen 6 meelood oo biriiji ahaa ay jabiyeen annaguna aanu muddo nagu qaatay inaanu samayno biriiji ka samaynay tan ma sugi kardho wax badan in ay waddanku kala goonaado waxay u baahan tahay degdeg in wax looga qabto cid kasta oo caawinta dalkan wixii ay ka geysan kardho waan uga baahannahay annaguna kolley wixii aanu tabartayaa waa bilaabaynaa inaanu meesha wax ka qabanno laakiin inta ay waddanku kala xiraanayaan muddo badan noqonaysa wax badan baa dhaqaalaha gaaraya kala xiraanshaha dartiis weliba khaas ahaan cuntada isaga gooshi jidhay oo ka imaan jidhay Boosaaso oo halkaan soo mari jidhay wax badan oo dhaawaca gaaraya hadda qiyaastaas waa la malayn karayaa intay leekaanayso waxaan rajaynaynaa inaanu hay'adihii aan shalay shirka jaraa'id u qabannay waan kula shirray maantana shirda la lahaa bal dadka godoonsan oo iyagu jira deegaanka loo yaqaan iyax bayla ka sokeeya dangorayana xeebta ka xiga oo aan wali laga warhayn 90% waxyeeladoodii laakiin qoraalka aan shalay ku soo saaray haddana wixii dawladda awoodi ka raashin wax garow ka qaaday wax boosas ka qaaday loo diray gurmadkooda inta waa sugaynaa lagama maarmo inaanu helno gargaar degdeg ah oo xagga cirka ah aeroboortka Garoowe iyo kuwa kale oo Boosaaso inta waa la keeni karaa si loo soo gaarsiiyo dadkaas gargaarka iyo meelaha kale oo loo soo rarayo wixii la gaaro baabuurta raashinka aan saaray waxaan loo sheegay inay roobki galeen oo wax gacan laga qaado iyo wax dameer la saaro mooyee aan gaadiidku gaari karin war halkuna yar yahay marka dhibaatadu meeshaan hadda ugu dhow magaalada Garoowe oo awalan shalay ay ku jirin dhibaatadii shalay ay ku jirin ayaa maanta inta biyahan intaan tirada badan oo hoos u socda oo arkaysaan iyo kuwa kor ka yimi wali lagama warhayo waxay cid waxyeelo gaarsiiyeen wali lagama warhayo hay'adda telecommunication-kana meelo badan buu ka shaqeynaa waa go'an yahay lug iyo gaadiidna maba gaari karaya intaas baan hadda maanta ku leeyahay geedo kuwa saaran ya dad baabuur saaran iyo geedo dushooda sida hadda wasiir xigeenka arrimaha gudaha ii sheegayo dad badan baabuur saaran oo dooxooyinka ka qaxay xoolihii in dowlad dhexday ku jiraan aqaladii waa looga cararay gudaha nugaasha laftigeeda marka waxaan waxyaalaha aan qiyaasi karin baa ka dhacay meesha laakiin wali tirakoobkii wali lama hayo waase soo heli doonaa haddii alla idmo dhaqso waa la ururinaya